بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقاسيدا نبضوندا صلاة دينتا طوببك أقوياهنك علماء دينك يدمان بعض الصحافة مرتي شرف تكسو قيب قشي كلن كان قيمها بدن وعليكم السلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي ورمهرين warkii waxaa yiri odayaashii iyo salaadiintii iyo duubabkii ujeedada gogosha waxay ahayd saddex qodob taageero iyo soo dhaweyn iyo garab istaag go'aankii masiiriga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ee u baahnayd runtii waqti ku habboon la qaatay waxaan uga mahad celinaynaa madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo go'aankaas saldhig iyo budlig u ahaa wuxuu ahaa go'aan loo baahan yahay shalay waxaan taageernay oo soo dhaweynay annagoo ku hadlayna magaca dadka Muqdisho degan go'aankii ay baarlamaanku qaateen maantana waxaan soo dhaweynaynaa maadaama isbedel siyaasadeed uu yimid isbedelkaasna maslaxa la biday go'aanka madaxdu ay gaartay oo ku salaysan in doorashadii la qabto waqtiga ugu dhowna la qabto muddadii doorashadii qof iyo cod ahaydna maanta aysan munaasib ahayn arrintaas waxaan isleenahay maslaxa la biday waa uga mahad celinaynaa dhiig joojin bay ahayd waa ku faraxsannahay waa ka mahad celinaynaa waa soo dhaweynaynaa waana ku garab taagannahay madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedyada ee arrintaa ka shaqeeyay waxaa noo muuqata tanaasul weyn oo loo baahnaa in la sameeyay oo dhanka siyaasadda ah waxaan ugu baaqaynaa laba fariimood meeshan ka diraynaa mid waxaan isna bogaadinaynaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka oo maantay dadkii maatada ahaa ee shala qaxay ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay ka qaxeen ciidamada qaranka ama amnigana ku amray inay xiriyoodii ku laabtaan waa tallaabo labaad oo yadidiilo leh waa soo dhaweynaynaa waana uga mahad celinaynaa waxaana faraynaa shacbiguna ha qaateen amarka la siiyo ciidamaduna ha qaateen amarka la siiyo waana uga mahad celinaynaa fariinta aan faraynaa waxa ay tahay madaxda maamul goboleedyada iyo saxiixayaasha heshiiskii 17 September ummadda Soomaaliyeed waa idin sugaysaa doorashadii sida ugu dhaqsaha badan in loo helo waa idin sugaynaa waxaana leenahay mar labaad yeysan dib u dhicin isqabqabsi dambe yuusan imaan waxaan soo dhaweynaynaa soo dhaweyntii madaxweynuhu uu sameeyay go'aanka ay gaareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha oo ku salaysnaa tanaasulkii doorashada waa soo dhaweynaynaa madaxweynuhu waana ku mahadsan yahay baarlamaankana waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala go'aankaas inay soo dhaweeyaan oo ay qaataan waana mahadsantihiin